Asalaamu calaykum akhyaarta ku xiran channelka Kiab Ingiriis kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ku saabsan inuu dhashay dalka Japan oo 4 mar ka baxsaday xabsi. Haddaadan weligaa maqal ninka la yiraahdo Yoshii Shiratori, la soco sheekadan bilow ilaa dhammaad. Yoshii Shiratori wuxuu ahaa ninkii loo maaro waayay in xabsi lagu dhaxayo. Ninkan oo ku eedeysnaa dil iyo dhac ayaa 4 mar ka baxsaday xabsiyadii uu ku xirnaa dalka Japan oo kulligood ilaaladooda aad u adkayd. laakiin sidee ayaad isleedahay inuu ku baxsan jiray ninkan? Xabsigii ugu horreeyay uu ka baxsado ninkan waxaa la oran jiray Aomori sanada 1933. Xabsigan wuxuu uga baxsaday sakeelkii ama baaldigii lagu qubaysanayay ayuu beryar kala baxay, kuna furay qufulkii albaabka qolkii uu ku jiray iyo jeebooyinkiiba. Intaasna kumuusan joojine, alwaaxyo iyo barkimo uu u ekeysiyay qof jiifo ayuu sariirtiisa dul saaray si loogu maleeyo inuu jiifo. sidaas ayuuna ku baxsaday, laakiin nasiib darro 3 maalin kadib waxaa la soo qabtay asagii oo alaab ka xaday isbitaal. Kadibna waxaa lagu xukumay xabsi daa'im, waxaana loo wareejiyay xabsiga Akita. Ilaalada xabsigan Akita badankooda ninkan aad ayay u garaaci jireen, markii laga reebo hal nin oo asxaan fali jiray, xaalkiisana la socday, niyadan u dhisi jiray si uu isugu buuqin ama u waalan ciqaabta darteed. Sanadkii 1942 Yoshii oo habeena badan tijaabooyin uu korayo darbiga si uu u gaaro qaybta daloolka hawada ka soo gasho qolka ciriiriga badnaa ee xabsiga, ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inuu isaga baxsado xabsiga Akita asagoo fantay darbigii sida qalajisada ama qorotada daloolkii hawada ka soo galaysayna ee saqafkana ka baxay. Orod iyo dhudumasho badan kadib wuxuu go'aansaday inuu aado guriga askarigii uu asxaan fali jiray, laakiin nasiib darro askarigan Yoshii aad ayuu u qiyaamay. ugu horreyntii wuu soo dhaweeyay, laakiin intuu suuliga ku jiray Yoshii ayuu ciidan ugu wacay oo ugu wareejiyay. Maalinta ayuuna Yoshii go'aansaday inuu mar dambe aaminin askari. Markaan Yoshii wuxuu codsaday in xabsiyada Tokyo la geeyo maadaama cimilada aad u kululaayeen, laakiin maxkamaddii ayaa ku gacan saartay codsigiisii, waxayna u dirtay xabsiga Abashiri. waa xabsi weli qof ka baxsada la sheegin. Xabsigan wuxuu ku yaalay meel geeri go'an ah, waxaana lagu xiri jiray dadka dambiilayaasha waaweyn ee dalka Japan. Yoshii halkan waxaa loo keenay maadaama uu ka baxsaday xabsiyo hore. Markii xabsigan la keenay Yoshii wuxuu ilaaladii u sheegay in si kasta ay u jeebayaan uu jebin doono uuna ka baxsan doono xabsiga. sidaa darteed ilaaladii waxay u waceen khabiiro dhanka birsancaynta. Inkastoo xilligaas ay ahayd dagaalkii labaad ee dunida, dalka Japan birihiisa aad umaysan adkayn. sidaa darteed khubaro dhanka biraha ah ayaa la keenay, waxayna sameeyeen jeebooyin lagu hayo gacmaha, iyaga sameeyeen xitaa ay u baahan yihiin 2 saacadood kaamil ah si ay u furaan qof lagu xiray iska badaayay. Yoshii xabsigan wuxuu uga baxsaday qaab aan laga filayn. Suugadii ama marqii uu bariiska ku cunayay ayuu maalin waliba xoogaa aan la fahmayn ka reeban jiray, markaasuu ku dhibcin jiray jeebooyinka lugta iyo gacanta iyo xitaa meesha dirishada yarta oo cunnada looga soo dhiibay, isagoo uga dan lahaa inay birta mirto. ugu dambeyntiina jeebooyinkii iyo fasaaxadii dirishada way jilceen. Kadibna habeenada ka mid ah ayuu inta wada jabiyay jeebooyinkii misna garbaha dhudhuubay ayuu ka baxsaday dirishadii yareed oo cunnada looga soo dhiibay isagoo xiran hoos gashi kaliya. Ilaaladii baxsashadiisa wayba ku farxeen, sababtoo ah waxay aamineen maadaama xabsigaas uu ku yaala meel geeri go'an ah, sida awgeed hadduu qabowga jiro ka badbaadiyo Yoshii inuusan ka badbaadi doonin xayawaanada halista ah sida madax kutiga. Laakiin midaas way ku qaldanaayeen oo waxaas dhan waxay u ahayd ninkan wax aad u sahlan. 2 sano uu banaanka joogay kadib, Yoshii wuxuu aaday magaalada Sapporo, laakiin nasiib darradiisa maalin xoogaa yaanyo isagoo beer ka guranaya ayaa beeralihii ugu yimid. Beeralihii isagoo u malaynaya tuugada iska yar soo booday Yoshii isagana si lama filaan ah ayuu caloosha toori ugu geliyay isagoo naftiisa badbaadinaya. Midan ayaan u keentay inuu xabsi u galo dil u geystay dartiis, waxaana lagu xiray xabsiga Sapporo asagoo waliba lagu xukumay dil togasho ah. Maadaama Yoshii uu ahaa nin ku caan baxay ka baxsashada xabsiyada, ilaaladii xabsigan Sapporo ayagoo isku haleynayay dhismaha cusub ama adag ee xabsiga iyo ilaalinta zaa'idka ah ee xagga saqafka ay ka hayaan, ay qaladkii ugu xumaa sameeyeen oo Yoshii meelan jeebayn. Isna fursadan uu ka faa'iideystay oo baaquligii cuntada lagu siinayay ayuu isticmaalay inuu ku qodo dhulka
ilaaladii siday iskaga fiirinayeen saqafka iyo dirishadaha ayay arkeen qolkii oo maran. Yoshie wuxuu muddo dhan 2 sano ku dhuumanayay oo ku dhex noolaa god dhexdiisa. Kadib godkii uu ka baxay oo magaalada ayuu aaday. Maalin asagoo kursi iskaga fadhiya ayaa waxaa soo ag fariistay haweeney askariyad ahayd. Markaasay haddana sheeko ku bilowday. Xoogaa markii la yara sheekaystay kadib ayay siisay Yoshie sigaar. Waagaasna Japan sigaarka aad ayuu qaali uga ahaa. Yoshie wuu kala batay wuxuuna bilaabay inuu is akhriyo. Wuxuu ka bilaabay wardhan aniga baxsad ayaan ahay, bal miyuusan horey u ballan qaadin in uu martaba askari aamin doonin. Ugu dambeyntii Yoshie way xirtay askariyadii waxaana la horgeeyay maxkamad. Sidii hore maynan ahayn markaas Japan oo isbedel ayaa ka dhacay. Sidaa darteed xaakinkii markuu dhageystay bilow ilaa dhammaad sheekadii Yoshie wuxuu bedelay xukunkii dilka ahaa ee horey maxkamadii hore ugu soo xukumeen Yoshie. asagoo cuskanayo maadaama uusan Yoshie 4 mar u baxsanayaba uusan wax dhaawac ah geysan iyo inuu dilkii u geystay naftiisa ku badbaadinayo wuxuuna ku xukumay xabsi 20 sano ah. Intaa kadib Yoshie wuxuu codsaday inuu xabsiga ku qaato Tokyo waana laga aqbalay. Wuxuu xabsiga Fuji Prison ee magaalada Tokyo ku jiray ilaa sanadda 1961 markaas oo la soo daayay. Yoshie wuxuu dib ula midoobay gabadhiisii maadaama xaaskiisina ay dhimatay aad ayuu u cidlooday. Wuxuuna guursaday xaas kale oo u dhashay hal wiil. 10 sano kadib xorriyadiisii Yoshie Shiratori wuxuu dhintay wadno qabad. Sheekadeeni maanta halkaas ayay noo eg tahay. aad u mahadsantihiin dhageysigiina iyo daawashadiina. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka like ta subscribe ka naga ilmaamin.